asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu mar kale kusoo dhowaada barnaamijkeena Ramadan English Series. waa barnaamijkeena imtixaanaha inoo ahay wuxuuna inoo marayaa maalintii 19aad. haddii aad maalmihii kale aadan soo dhegaysanin applicationka wax ka baro academy ayay dhammaan kugu wada diyaarsan yihiin. maanta 19 weeyaan, waxaana kaga hadlaynaa time management between work and worship. inaad waqtigaaga isku beeqaamiso aad iskugu dheeli jirto shaqadaada iyo cibaadada bisha Ramadaan markii la joogo cibaado badan ayaa lasaga baahan yahay. marka inaad shaqadaada iyo cibaadada isku dheeli tirto ayaa title u ah. soo dhawaada mar kale, anigoo Ustaad Maxamuud Axmed Xaaji ayaa idiin soo jeedinayo, maamulaha iyo macalinka wax ka baro academy oo ah application aad luqadda Englishka si fudud oo raaxo leh uga baran karayso. haddii aad xiiseynayso qaybta hoose commentiga waad ka helaysaa linkiga, nagu soo biir insha Allah kama shalay doontid. Alright, ereyga koowaad maanta waxaan kaga hadlaynaa I try to manage my time wisely so that I can finish my work before Tarawih. waxaan isku dayaa inaad timekayga waqtigayga aad u beeqaamsado si weliba si xigmadeysan, si aan shaqadii iigu dhammaato taraawiixda ka hor, si ay shaqadeeda iigu soo dhammaato taraawiixda ka hor. waxaan baranaynaa marka manage ayaan baranaynaa iyo wisely. I try to manage my time. waxaan isku dayaa waqtigayga inaan manage gareeyo ama aan maamulo ama aan isku beeqaansado wisely, si xikmad ku dheehan tahay. oo micnaha waxyaabaha daruuriyaadka oo kale oo kaliya inaan focus ka saaro, waxyaabaha waqti lumiska aan ka fogaado. wisely marka wax weeyaan waa si xikmad iyo caqli ay ku dheehan tahay weeyaan, so that I can finish my work before Tarawih. si ay markaasi iigu suurta gasho in aan waqti shaqadeeda dhameeyo taraawiixda ka hor inaan waqtigayga dhameeyo weeyaan. Alright, marka maxaan baranay? wisely ayaan baranay, waa si xikmad ku dheehan tahay ama xikmad leh. qaybta commentiga kusoo qor adigoo isticmaalaya ereyga wisely. manage my time. manage waxa weeyaan maareen ama organize, control your time. waqtigaaga inaad maareysid. manage marka waqti oo kaliya maahan, wax walbaa la manage garayn karaa, sida lacagta oo kale, waxaan lahay energy oo kale, effort oo kale, wax walba ayaa la manage garayn karaa. manage marka waa maareen weeyaan. Alright, application hadda igala socotid codka hoos ayuu ku yaalaa, waad dhegaysan doontaa ma shidi doono insha Allah. qaybta labaad ayaa u gudbaynaa. balancing work and worship requires a lot of discipline during Ramadan. inaad isku dheeli tirto shaqada iyo cibaadada. shaqada waxa weeyaan waa work weeyaan, cibaadada iyo allabarigana waxa weeyaan worship weeyaan. waxay u baahan tahay discipline badan. requires marka waxay u baahan tahay weeyaan a lot of discipline during Ramadan. xilliga Ramadaanka waxay kaaga baahan tahay discipline badan inaad la imaado. guud ahaan nolosheen oo kale, inaad shaqadaada iyo mar walba cibaadadaada, aakhiradaada iyo adduunyadaada inaad mar walba isku dheeli tirtid ma aha wax sahlan. waxay u baahan tahay discipline badan ayay u baahan tahay. balancing marka waa isku dheeli tirid weeyaan, inaad dhinacan aad uga badan weeyaan, isku dheeli tirnaatid. Alright, balancing waxaan ku baranay isku dheeli tirnaan. qaybta commentiga kusoo qor jumlo adigoo isticmaalayo. requires waxay u baahan tahay weeyaan. requires waxay u baahan tahay ama need something, waxay u baahan tahay weeyaan. qaybta saddexaad ayaa u gudbaynaa. I prioritize my most important tasks early in the morning when I am most alert. I prioritize. waxaan ahmiyad siiyaa ama priority-ga ama ahmiyadda koobaad siistaa waxyaabaha shaqooyinka igu muhiimsan ayaa ahmiyadda siiyaa xilliga hore ee subaxdii markii uu dareenkaygu fiican yahay. when I am the most alert macnaheedu waxa weeyaan markaad firfircoon tahay oo dareenkaaga uu joogo, focuskaaga uu joogo. I prioritize marka ereygaan baranayno waxa waaye prioritize waxa weeyaan ahmiyad siiyaa ama aan usoo hormarsadaa ama aan kusoo hormarsadaa. my most important tasks, shaqooyinka igu muhiimsan ayaa subaxdii usoo dhigta. macnaheedu waxa weeyaan waxa igu muhiimsan ee laga rabo inaad qabto oo energy ugu badan u baahan ayaa iska soo hormariya oo aan iska qabtaa. prioritize waxa weeyaan kala horeysiin ama ahmiyad siin weeyaan ama shayga in ahmiyad gaara la siiyo weeyaan.
qaybta commentiga kusoo qor jumlo adigoo isticmaalaya. alert micnaheedu waxa weeyaan dareen jooga weeyaan, marka dareenkaaga iyo maskaxdaada micnaha attention fiican aad bixin karayso weeyaan, ama energy aad leedahay weeyaan, ama aad soo jeedid. isagana qaybta commentiga kusoo qor. haddii aad applicationka igala socoto isku day inaad quizkani aad ka shaqayso, aad iyo aad buu kuu saacidi doonaa. xoogaa yar fahankaaga ayuu sare u qaadayaa. soo dhawaada mar kale. haddii aadan weli nagu soo biirin waxaan kugu casuumayaa inaad nagu soo biirto. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.